Maarayaha Cusbeddelka Guud ee magaalada Wardheer Dr. Cabdinaasir Cali Abshir oo warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida SRTV u waramay ayaa bulshada Soomaaliyeed ku wargeliyay inay ka faa'iideystaan qalimada faruuryaha iyo dhamxanaga bilaashka ah oo laga fulin doono dhawaan Cusbeddelka Guud ee magaalada Wardheer isla markaasina qallimadan ay iska kaashan doonaan hay'ad fadhigeedu yahay dalka Jarmalka iyo Cusbeddelka magaalada Wardheer oo kaashanaya xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida waxaana la bilaabi doonaa qallimadan 7 bisha ilaa 15 bisha February ee sanadkan aan ku jirno. Maarayaha Cusbeddelka magaalada Wardheer Dr. Cabdinaasir Cali Abshir ayaa warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida SRTV uga warbixiyay. Bismillah. Waxaan rabnay maanta inaan fariin u dirno bulshada Soomaaliyeed fariintuna gaari doonto gaar ahaan bulshada gobolka iyo nawaaxigeeda ku dhaqan gobolka Doolo. Fariintaas oo ah in bisha February 2026 toddobadeeda ilaa 15keeda uu Wardheer Hospital marti gelin doono qallimada bilaashka ah ee faruuryaha iyo dhabxanaga kuwaas oo ay fulin doonaan dhakhaatiir Soomaaliyeed oo deegaanka u dhalatay oo ka shaqeynaysa muddooyinka u dambeeyay hawlaan ka shaqeynaysay iyadoo ka soo filiyay deegaamo kala duwan oo Soomaalidu degto hadday noqoto deegaankeena iyo gobolada deriska ee Soomaaliya qallimadan oo ay iska kaashadeen hay'ad fadhigeedu yahay dalka Jarmalka xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka iyo hospitaalka guud ee Wardheer ay ujeed ku tahay in looga faa'iideeyo dadyooga la dhiban xanuunada rabbaaniga ugu dhacay ama qofku uu kasbaday la xiriira faruuryaha dhabxanaga qallimada si bilaash uga bilaabo doonto 7 bisha February socon doonana muddo 7 cisho ah ay ujeed ku tahay in dadka looga faa'iideeyo qallimadan sida caadiga ah hadii la dhaho dhakhaatiirtu qofku lacagtiisa ku daweeyo wada qallimo qaata kharash badan qaata marka fursadan oo ah fursad qaali ah waxaan ugu baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed cid kastoo fariintan u gaadho in ay ka faa'iideystaan isla markaana iska diiwaan geliyaan waaxda liisinka ee hospitaalka guud ee Wardheer iyadoo boorkan iga dambeeyaan ku daabacnay nambarada lagala soo xiriiri karayo registrationka iyo diiwaangelinta laga bilaabay already hadda way bilaabtay diiwaangelintu bukaano badan baa hadda soo diiwaangeliyay marka waxaan bulshada Soomaaliyeed si guud ugu boorinaynaa inay ka faa'iideystaan fursadan loogana faa'iideeyo caruurta iyo dadka waaweyn ee la dhiban xanuunadan hadda la ku soo geliyaa faruuryaha dhabxanaga si bilaashan uga bilaaban doono hospitaalkeena taariikhda aan sheegnay insha Allah daalad guud ahaan bulshooyinka ku dhaqan gobolka Doolo maxaad ugu baaqaysaa fariintaada ugu dambaysa bulshooyinka guud ee ku dhaqan gobolka Doolo iyo bulshada Soomaaliyeed ee fariintuna gaari doontaba maadaama muddo ay ka hadhay ololaha xilligu bilaaban lahaa in looga faa'iideeyo oo laga faa'iideysto fursadan waa fursad qaali ah waa fursad gurigeena noogu timaaday waana dadaalada xafiiska caafimaadka hadda la ku soo malgeliyo uu ku bixinayo in laga jawaabo sektorka caafimaadka baahiyaha ka jira marka bulshada waxaan ku boorinayaa in laga faa'iideeyo looga faa'iideeyo dadyaga la dhiban isla markaana diiwaangelinta ay ka soo qayb galaan insha Allah aad baa mahadsantahay